tani waa madal kulmisay nabadoono magac weyn ku leh bulshada, cuqaal, culumaa udiin iyo qaybaha dhalinyarada. Waxa ay goobjoog ay u ahaayeen duubista Duub Maxamed Dhiblaawe Qoorgaab Ramadaan oo beesha Jimcaale Macalin ay u garowsatay in uu hoggaan dhaqameed u noqdo. Waxa uu waayajoog u soo ahaa dadaalo fara badan oo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka bulshada qaybaheeda kala duwan, waana taa midda keentay in uu noqdo duubka beesha Jimcaale Macalin. Xaaji Cali Maxamed Guuleed oo daafuray kulanka ujeedkiisa ayaa sheegay in bulsho yeelataa hoggaan ay tahay mid qaybaha kala duwan ee walaalaha bulshada kale ay la dhaqmaan. waxaan u istaago on kaliya waxa waaye munaasabada inaan sheego duqa duubkiisa Maxamed Dhiblaawe Qoorgaab oo loo yaqaano Ramadaan ayay ku saabsan tahay munaasabada tanu akhyaara faahfaahin doonta aniga inaan gogoshaas ka mahad celiyo kaliya waaye muhiimadu aad u mahadsantihiin. Nabadoon Cali Xasan Cali Jeesto oo ka mid ah nabadoonada beelweynta Wacaysle ayaa waxa uu sheegay in madashan quruxda badan uu ku dhiirigelinayo duubka in uu horay u sii socdo maadaama uu duubka kaalin weyn ka soo qaatay howlo nabadeed. maantana waxay joogtaa Wacaysle joogtaa in loo soo gudbiyo in Jimcaale Macalin oo yahay qabiil meel dega oo diyadiisa asugu la baxa oo daqarkiisa la baxa oo lagala xaajoohaya guddoonka ay beriga duubteen oo ay booska keeneen Ramadaan Jimcaale Qoorgaab oo nabadoon u yahay dad intaas la rabaa Wacaysle in loo soo gudbiyo maadaama guddiga Wacayslana aan ka mid ahay. Macalin Cumar waxa uu ka mid yahay guddiga beelweynta Wacaysle nabadoonadooda. Waxa uu ku biiriyay talada ah in nabadoonka iyo duubkuba kaalintiisa uu u muujiyo sida horey looga bartay dadaalada isdhexgalka iyo nabadeynta iyo horumarinta beesha Jimcaale Macalin. waxaan marqaati ka noqonaynaa beeshaas gooni isku taagtay hadda magaceeda hore noo kugu sheegay awal ay ahaayeen diya wadaaga beel kale oo maantay laf geenu istaagtay beel gooni u istaagtay oo Wacaysle wax la wadaagaysa oo xargaha Wacaysle iyo maartay xisaabta Wacaysle maqaamkeeda xarigeeda geesay u istaagaysa inay tahay saasan marqaati ka nahay hadda gogosha marqaatigeedii waa sidaas iyo maartay nabadoonada wax la soo keenay nabadoonka guud oo gudoomiyaha u noqon hayana Ramadaan Dhiblaawe oo liqeenay Maxamed hore hadda marka hore Ramadaan buu noo ahaa laakiin Maxamed Dhiblaawe nabadoon Maxamed Dhiblaawe Duub Maxamed Dhiblaawe Qoorgaab Ramadaan oo ah duubka beesha Jimcaale Macalin ee maanta la duubay ayaa waxa uu sheegay in mar waliba uu ka qayb qaadan doono horumarinta qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana uu u cadaalad fali doono. waana mahadsantihiin dadkii igu idmaday inaan hawshaan haddii ku qadaro ayagana igu duceeyaan Wacaysle igu duceeyay ayaguna igu duceeyaanna aadan u rajeeyaa insha Allah. waxaana isleeyahay anigu hadda guddiga kuma cusub dhaqan kuma cusub dad la raadihayo mi oo was wada fahmi karnaa guddiga Wacaysle haddaan ka horna kuma coobo haddaan kadib inaan ku coobo Allah ka ilaaliyo. waxaan jecelahay inaan mabda iyo wabda gudoomiyaha iyo guddiga dhaqanka Wacaysle aragtidooda inaan ku shaqeeyaan rabaa iyo aragtida beesha ay soo duubato Jimcaale Macalin. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaana ballan qaadaya adinka naftigiinuna sida aad u jeceshihiin oo wanaagsan iyo haddii rugtaaradiina iyo haddii aqligiina inaan ku shaqeeyna ballan qaadaya ayadana. gudoomiyaha nabadoonada beelaha Wacaysle Xaaji Maxamed Cabdi Shido oo kula dardaarmay duubka doorkiisa waaye arag in uu bulshada ku hago kaliya doorka aniga aan ku leeyahay akhyaartuna ugu soo dhaweysay oo uu shirku inuu markaan gabagaboobo sida loogu mahad celiyay dhammaan Jimcaale Macalin oo maanta gogoshaan fidiyay una fidsheen walaalahood bahweynta beesha Wacaysle dhaqankeeda sida laydinkugu mahad celiyay ayaan anaguna mahad celintaas la qaybsanaynaa. idinkana intay bulsha ka kooban tahay
ayaad uga soo qayb gasheen gobasha una dhigteen